hortaya masuulka waryaha masuulka mina qaxayso maana laha ogeysi iyo maray dhacaysi maydka la sii wado malin waliba joogta waa masiibo harano mankeenu diido meele ujeediyo meeshay ka jeedaba marna aan laga dharayn hortaya masuulka waryaha masuulka ciidanka watawaadimi yaa lagu qaaday sharciga argagixisada ninkan baabuurka soo rartay meesha soo rartay ayay in lagu qabto kadib sharciga lagu qaaday loo waa la yiraahdo laakiin ninba asaga naftiisa dilay oo dhintay sharciga markaas kadib ay quraan ma mamluuk yaa siiminaya gaariga wuxuu isku dayay inuu soo gudbo checkpoint ka yimaado gaariga wuxuu ka yimid Madiina ka yimid wadada Madiina raboorka soo dhinaca soo hormarta ayuu ku soo socday halkaa waxaa jooga ciidamo oo miisa oo checkpoint ay u taalayaa jiro ciidamadiiba eliyay markii hore way istaajiyeen oo ay dhaheen noqo wuxuu isku dayay wuxuu iska dhigay qof gadaal u noqonaya markaas uu si xawaari leh gaarigu soo dhaqaaqay hortaya masuulka waryaha masuulka gobolka banaadir amniga lagu wareejiyay maanta laga bilaabo taliyaha ciidanka nabadgelyada wuxuu sheegay asagoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliska inuu amniga gobolka banaadir ku wareejiyay annaga wasaaradda amniga kala xisaabtamaynaa baarlamaan ahaan amniga dalka wasaaradda iyada u taala hadii wareejinaysiin hadii kale maydka la sii wado malin waliba joogta waa masiibo harano mankeenu diido meele ujeediyo meeshay ka jeedaba marna aan laga dharayn hortaya masuulka waxay sheegeen inuu ahaa qaraxa saarnaa in lagu qiyaasay qaraxa fara badan oo ilaa 200 oo kiilo kala waa fahmi kartaa qaraxii hotel Jazeera damage-ka uu gaarsiiyay waa 150 kiilo kala kan ayaa ka badnaa nasiib wanaag laakiin dhimashada iyo dhibka uu geystay kan baa yaraa markaa dhinaca kale ka fiiriso hortaya masuulka waryaha masuulka waxa weeye maadaama magacan argagixisada iyo islaamka ay dadka waxa weeye masiixiga ah ay isku soo dhigeen baarlamaan oo dadka xubnaha ka ah ay muslim wadayiin in sharci la yahdo la dagaalanka argagixisada inay ansixiyaan sideedaba u adag magacayga horta waxaa la yidhahdaa Axmed Ismaaciil baa la yidhaahdaa hawshan oo istishaadiyada u soconana waa hawl aan ilaahay dartii u qabanayno waana hawl ilaahay nagu waajibiyey waajib alla ayaan gudanayna waajibka ilaahayna saarayna waxa weeyaan kii ahaa in gaalada lala dagaalamo hortaya masuulka waryaha masuulka ciidamada gaashaan waa mahadsan yihiin ilmo godana guushoodu waa gumaadka shacabka gaashaan guusheeduna waa gurmadka shacabka odayaasha shahaadiidka oo kufaar raaca oo gaala raaca oo gadcasta oo badmadoobaha oo murxay oo tuskidaya oo guurtida hargeysa ugu badan tahay dhammaantood waxaa ku jira boqol kirdaa ku jira maydka la sii wado malin waliba joogta waa masiibo harano mankeenu diido meele ujeediyo meeshay ka jeedaba marna aan laga dharayn hortaya masuulka dadka laga badbaadiyay halkan hotelka gudihiisa dadka ku dhintay ee cadawgu inay dilaan ay awoodeen markay gudaha soo galeen 4 qof meeshay ka dileen oo 59 qof laga badbaadiyay waxaad dareemi kartaan xajmiga ciidamadu hortaya masuulka
sida waayo-aragnimada leh iyo sida dadaalkay u galeen inay arrintan soo afjaraan waa fahmi kartaan waqtiga ay soo qaadatay oo habeen iyadoo ah in yacni meeshii dad shacab oo ku jirana in yacni dadkii ay ku dhintaan iyadoo laga ilaalinayo in yacni waqtigan uu soo gaaray ilaa iyo 12 inay dhimashada tahay ayaa yacni hordhac noo soo gaaray waxaana jeclahay inay intaas ku ekaato waxaa sidaas oo kaleetaan tacsi u dirayaa golaha shacabka baarlamaanka oo ay kaga geeriyootay 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka ama golaha shacabka ayagana tacsidaas baan u dirayaa miinaa qarxayso mana lahaa ogeysiin iyo maray dhacaysee maydkaa la sii wado maalin waliba joogtaa waa masiibo qaran oo maankeennu diido meel ay u jeediyo meel ay ka jeedaba marna aan la garanayn horta yaa mas-uulka mawjimada dhacaayo midi ku taagayo muranaan dhammaan baa lagu wada mashquulo majarihii dalkeenna aan mugdi galay haddeero iftiin nooma muuqdayo meel aan u soconne horta yaa mas-uulka mas-uuliyadda in la qaado wey malin waliba joogta waa masiibo qarano mankeenu diido meelahe ujeediyo meeshay ka jeedaba marna aan la garanayn hortayaa mas-uulka oo ay ka soo jawaabaan howlo badan buu u baahan yahay laakiin inuu shakhsi mas-uula meel la soo joogtado ou yidhaahdo sharcigaas daraaddiisaana amniga la sugi lahay amniga ninka lagu qaadi lahay waaba dhintay waad arkaysa ninkii baabuurka watay ee argayga xisada lagu qaadi lahay waa dhintay waa intiisa dhimin ka hor maxaa loo qaban way waxaa la yaabaa maalin kasta wiigii 3 jeer ama 4 jeer baan idaacadda waxaan ka fiirsadaa dad la tooganahay oo la leeyahay waa shabaab iyo waa wax kale waxay ahaayeen anugu ma aqaan qof ajnabiya oo dalka ku soo xadgudbay ama shabaab ha ku yimaado ama ururo kale ha ku yimaadee oo weligay la tooganaya ma aanaan fiirsan hebel oo Soomaaliya weeye laba boqol Soomaa war wixii aado seeluga ogan way mataqaana meesha laga soo raraayo iyo guriga laga soo sameeyay intaba kow maaha 2 maaha 3 maaha 4 maaha maykala siiwado malin waliba joogta waa masiibo qarano mankeenu diido meelahe ujeediyo meeshay ka jeedaba marna aan la garanayn hortayaa mas-uulka sharciga maanta la doonayo muxuu yahay ayadoo maalin kasta la tooganaya dadkii haddaan sharci awsan jirin maxaa dadkaan lagu toog maxaa dadkaanu ku le'anaya maxaa loo laynaya sharciga loo maray xaggee yahay haddiiba saaka oo wasiirkii amnigu iyo taliyayaashiisii iyo wadaaddo islaameedoo la waalay hortayaa mas-uulka ciidanka nisa ee gobolka banaadir shaqada ay qabteen waa ujeeda gaarigan waa kaarib waxaa ka buuxay waxaa gadaasheeda yaalla iyo boolasha ee waxyaabaha ummadda lagu halaago gadaasheeda yaalla geesiyaasha 44 kooxdii sii dhacayday tabarteedu dhammaanaysay caawad arkeedii markay bacaha annaga miina iyo hoobiye nooga dhigayeen waxaan leenahay ujeedkoodu waxa weeye waa joognaa annaguna ma joogtiin baynu leenahay hortayaa mas-uulka haddana waxaan idinla socodsiinayaa in madax sare oo ka tirsanayd al-shabaab iyo ciidamo badan intaba laga dilay baabuurkaasi markii la baaray wuxuu noqday baabuur aad waxaan ku dhahay looga buuxsan waxaan ku dhahay waxyaabaha qarxo looga buuxiyey waxaa lagu qabtay degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadda ilal daa'uud ee lagu qabtay majarid dalkeena mugdigaale hadeero iftino muuqdiyo meelaha socodee inay
la og yahay fuushaa loo baahan yahay tusaale haddii waax qof lagu dilo oo uusan wax ka ogeyn gudoomiyaha waax asaga in loo ciqaabo weeye haddii degmadan wax ka dhaca waa in taliyaha saldhigga booliiska taliyaha nabad sugidda degmada iyo gudoomiyaha degmadu waa inay mas-uuliyadda qaadaan maadaama annagu ka gobol ahaan la rabo in amniga gacantana loo geliyo hadafka horta ugu weyn horta kaas weeyaan dalkiya dadka dugsi u tahay dowladnimo dalkiya dadka dugsi u tahay dowladnimo difaac minni madaad u tahay dowladnimo difaac minni madaad u tahay dowladnimo danguud ilaaliyaad u tahay dowladnimo danguud ilaaliyaad u tahay dowladnimo dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii mawngowde dalkiya dadka dugsi u tahay dowladnimo dalkiya dadka dugsi u tahay dowladnimo difaac minni madaad u tahay dowladnimo difaac minni madaad u tahay dowladnimo danguud ilaaliyaad u tahay dowladnimo danguud ilaaliyaad u tahay dowladnimo dowladnimo joog dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii mawngowde